madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigii ballaarnaa ee uu hogaaminayay oo kowdii bisha safar shaqo wadanka kaga ambabaxay ayaa gaaray caasimadda dalka jamhuuriyadda Guinea ee galbeedka qaaradda Afrika oo ay martiqaad rasmi ah ka heleen. madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga uu hogaaminayay ayaa si maqaamkeedu sareeyo loogu soo dhaweeyay gagada diyaaradaha caalamiga ah ee Conakry International Airport ee caasimadda jamhuuriyadda Guinea, waxaana halkaasi ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Guinea mudane Mamadi Toure, waxaana madaxweynaha iyo wafdigiisu ay qadar nasasho ay ku qaateen qolka VIP-da ee gudaha madaarka. intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo wafdiga uu hogaaminayay waxaa madaarka Conakry International Airport lagaga qaaday diyaarad khaas ah oo nooca qumaatiga u kaca ee helicopterka loo yaqaano, taasoo si toos ah madaxweynaha iyo xubnaha wafdiga u geysay qasriga madaxtooyada wadanka jamhuuriyadda Guinea. madaxweynaha Soomaaliland iyo xubnaha wafdiga ee safarkiisa ku helinaya ayaa xarunta qasriga madaxtooyada dalka jamhuuriyadda Guinea lagaga galbiyay baabuurta loogu talagalay madaxda maamuuskeedu sareeyo, waxaana la geeyay hoteelka Colom ee bartamaha caasimadda dalka jamhuuriyadda Guinea ee Conakry, iyadoo berrina toos loo gudagali doono ujeedka safarka iyo kulamada muhiimka ah ee labada madaxweyne.